JBB JPY maxaan ka filaynaa sidaan marka uu yahay price-ku maxaad ka filaysaa maxaa dhici doono wejiga labaad oo ay lacagta samay doonto aad iyo aad ayuu muhiim noogu yahay in aan fiirino sidaas darteed dailiga waxaan arkaynaa in aan ku sugannahay impulsive phase waxaan helnay impulsive correction impulsive maxaan sugaynaa correction then impulsive waa wax dhici kara oo macquul ah iyo probability-ga lacagta in ay tahay jihada guud ee bayga ah mar waliba waa in aad fiiriso middle-ka marka aad ku sugan tahay in price-ku uu ka samayn karo journal middle-ka waa in aad dhuuxdo oo aad maanka ku hayso waa in aad maanka ku hayso waxa ka imaan kara meeshan middle-ka ah oo kaliya aadan ku fikrin in halkan correction aad ka hesho kadibna in aad buy garayso ee aad ku fikirto meeshan in uu yahay in halkan ay ka samaysanayso lacagta angle in ay halkan ka samaysanayso aad ayay muhiim u tahay in aad ku baraarugsanaato waana waxa kaa celin kara in aad khasaare la kulanto kaana dhigi kara trader madax bannaan oo maxaa la yidhahdaa ku kalsoon istaraatiijiyadiisa iyo waxa uu samaynayo mar walibana suuqa message ka qaato aad ayay muhiim kugu tahay sidaas darteed waxaan arkaynaa halkan inaan haysano 1 2 3 halkan inaan haysano impulsive middle section waxa aan sugayno impulsive kale inaan helnay waxaan sugayno waxay tahay in aan soo taabano kadibna in aan jihadeeni bayda ahayd ku socono ama in aan jibino oo all the way aan double bottom halkaas kasoo samayno intaanaan bay garayno marka waxay isku diyaarinaysaa JBB JPY in ay journal samaysato oo halkan waxaan arkaynaa inaan haysano impulsive middle section waana awoodda uu leeyahay middle sectionka in aad halkaas ka fahanto marka jihada selka ah ayaan ka raadinaynaa JBB JPY oo sell ayay soo aadi doontaa maxaad sugaysaa haddii aad hesho impulsive-ka kadibna correctionkiisa aad qaadanaysaa jihada selka meeqo beep ayaa ku jirto halkan for example ilaa iyo corrective-keen haddii aan dhahno 500 oo beep ilaa trade lane-keen jihada selka ayaan ka fiirinaynaa JBB JPY sell ayayna soo aadi doontaa saaxiibayaal isha ku haya saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiin walaalaha Dhigaal Academy iyo bahweynta Dhigaal Academy dhammaantiinba soo dhawaada waxaan halkan kusoo gudbinayaa muuqaal aad iyo aad u kooban balse aan rajaynayo in aad nuxur kala bixi doonto hadduu ilaah yiraahdo lacagtan JBB JPY horey ayaan ku falanqaynay oo qaabka ay kusoo aadi lahayd sell ama sida aad markaa uga faa'iidaysan lahayd intaba waan kasoo hadalnay balse muhiimaddu ma aha in lacagtii ay jihadeedii aado oo ay joogto hadda meeshii aan markii horeba u dirnay taa ma aha muhiimadda iyo waxa aan muuqaalka kusoo gudbinayno balse waxay tahay sidee ayaan anigu ku ogaan karaa marka lacagtu ay samaysanayso angle taa oo ah large correctionkan haddeertan ay ku jirto lacagta iyo meesha ay kasoo laabatay oo ahayd markaan falanqaynaynay 8 bisha halkan ayay ku sugnayd lacagta meeshan oo ay ku sugan tahay why aan u dhahnay lacagtu journal ayayba hadda samaysanaysaa oo ay diyaar u tahay waxayna imaanaysaa at least ilaa iyo trade lane-kan in aan dhignay ayaad ogeedeen annagoo haysanay 1 2 sugaynana in 3gaas lasoo dhammaystiro at leastina in aan helno haddii aan impulsive ahaan u jirino in double bottomkan cafwan aan imaan doono muhiimaddu marka waxay tahay angalka oo aad fahanto waxaad fahantay sir weyn oo kaa qarsantaa oo micnaheedu tahay in aad adigu markaa kalsooni naftaada gelin doonto oo aadan u baahnayn in ay cidina suuqa kaaga sheekayso oo aad markaas aqoontii iyo kalsoonidaadii markaa ay saa'id usii badato waxaan ognahay markaan joogno top of the structure ama low of the structure markaan joogno oo ah meelaha ay reversalka ka dhacaan in aan adeegsano confirmation na siiyo patterns markaas aan suuqii confirmation ka qaadano ama in aan markaa annaga jihada guud annagoo og in reversal uu yahay patternku ama double top ama double bottom ha noqdo descending ama ascending ha noqdo candle formation kan annagoo fiirinayna mar waliba jihadees oo suuqa ku sugan yahay haddii uu yahay sell ama buy taa way iska caddahay hadduu reversal suuqu yahay in uu samayn doono
trend cusub in uu samayn doono ama jiha cusub in uu la imaan doono taa waa mid waadix ah oo trader walba uu og yahay oo suuqan ka ganacsado balse muhiimaddu iyo sirta ku jirtaa waxay tahay ay dadku ku dhiban yihiin in badanna ardada already experiencega ah oo Digaal Academy ku jirta waxay og yihiin xaaladda marka ay ula macaamili lahaayeen marka middleka lacagta ay ku jirto waana marka aad u baahan tahay in aad kala ogaato valid trade-ka waxa uu yahay structure-ka in uu valid yahay in uu yahay marka trade-ku not valid trade in uu yahay ama valid trade in uu yahay set up markaas in aad isku halayn karto oo aad valid trade-kaas in aad qaadan karto iyo in kale probability-ga waan kasoo sheekaynay isaga oo waa marka top of the structure ama low of the structure aad joogto mar structure-kaaga si qurux badan loo tagay oo aad heshay saddexdaada taabasho confirmationadaadi ay ku dhimaystiran yihiin taa waxaan u malaynayaa cid ay daax ka saaran tahay malaha oo qof waliba waa wax uu yaqaano arkina karo haddii uu practic ahaanna u sameeyo balse muhiimadda waxay tahay areadan marka aan joogno annaga sidee ayaan u iri lacagtan way soo dhici doontaa oo halkan ayay imaan doontaa tan waxay ka dhigan tahay in ay ku jirto meeshan sir aad iyo aad u weyn ay ku duugan tahay oo ah marka koowaad oo aad adiga wax fiirinaysa keliya in aadan ka fiirinin for example waxa la wada fiirinayo oo marka traderada qaar ay isla yihiin halkan waa impulsive meeshan waa correction halkan waa impulsive waxaan ku sharaxnay lacagtii correction in uu imaan karo kadibna uu buy imaan karo balse halkan ay tahay in lacagtu ay angle ka samaysatay muhiimna ay tahay in aad fahanto angle-kaas oo keliya aadan fiirinin waxa halkan ka imaanayo waa correction-kan si aad markaa aqoon la'aan aysan kaaga reebin lacagta inay imaan doonto ama la yaab ay kugu noqonin waayo halkan suuqu uu reversal uga sameeyey taa waxay ka dhigan tahay in aad fiiriso marka koowaad halka aad ku sugan tahay ogow laba su'aalood oo aad isweydiiso trade-kaaga ayay kor u qaadayaan wejigee ayaan suuqa ku suganahay price-ka halkee ayuu ku sugan yahay labadaas weji ama labada su'aal oo aad xal u heshana trade-ka markaas in aad qaadato ayaad xal u helaysaa ama in aad ka joogto suuqa oo aadan markaa gelin taa waxay ka dhigan tahay meeshan in aan helay impulsive-kan kadibna in halkan ay tahay 1 iyo 2 taabasho in lagu sameeyay meeshan in uu yahay middle section taa oo ka dhigan baatinka marka uu samaysanayo middle section inuu already isagu uu baatin yahay taa oo ka dhigan 90% in uu suuqay marka soo kala firaynayo uu jihadiisii wadan doono oo jihadiisii selkeed uu soo aadi doono taa waa optionka koowaad optionka labaad oo halkan ku jira isagana waxay tahay baatinka uu isdhammaystiray oo meeshan uu sameeyay 1 2 3 in uu sameeyay optionka saddexaad ee secret oo ku qarsan ayaduna waxay tahay halkan inaan ka helnay impulsive correction impulsive large correction taa oo macnaheedu yahay in uu suuqii soo dhici doono selna soo aadi doono waxaadna arkaysaan in si cajiiba dhammaan ardada Digaal Academy ay uga wada faa'iidaysteen si kalsooni lehna mar waliba oo aan wax sharaxayno ugu faahfaahino in marka si kalsooni lehna aad wixii u arki karto qaabka ay u dhaceenna aan kugu soo gudbinayno wax itus oo itaabsiya balse aysan ahayn wax annagu aan daah saarayna ama aan kaa qarinayn waxaan gacmo furan kugu soo dhaweynaynaa walaalaha iyo bulshaweynta marka ay ku midoobay Digaal Academy walaalo badan oo experience already isku kalsoonaaday oo ayagii aanan u baahnayn maanta in ay cid wax weydiiyaan oo tradeyadoodii iyo shaqadoodii wato oo already experience noqday consistency noqday maantana guulo waaweyn oo la taaban karo gaaray ayaa Digaal Academy kaaga horeeyo waad ku arki doontaa saaxiibayaal intaas ayaan idinla wadaagay taa oo ka dhigan in haddii aad aragto qaab noocan oo kale taa berri ay noqonayso in ay tafaasiilaad dheeraad aad ka bixiso trade-kii ogaato heerka uu ku sugan yahay meesha uu ku sugan yahay iyo wejiga uu ku sugan yahay aad iyo aad ayaan idin soo dhaweynaynaa aad iyo aad nooga mahadsantihiin daawashada muuqaalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi